wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo warbaahinta kula hadlay caasimadda Hargeysa ayaa sheegay inaan waxba iska bedelin xiriirka u dhaxeeya dalalka Somaliland iyo Itoobiya sidoo kalena waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland in safiirkii u fadhiyay dawladda Itoobiya magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland uu hawlgab noqday isla markaasina ay bedel ku soo sameyn doonaan kuna hawleeyeen xulashada qofkii fadhiisan lahaa safaaradda Itoobiya ku leedahay Somaliland haba yaraatee wax kala fogaansho ah iyo wax isdiidma ah iyo wax ka bedelmay xiriirkii wanaagsanaa ee aadka u wanaagsanaa ee Somaliland iyo Itoobiya ka dhaxeeyay inaan wax isbedel jirin baan rabaa inaan idin cadeeyo dhinac kasta oo laga eego waxyaalaha waxa la taabtay dadkan tuhum baa waxba dhacay tuhum baa laga samaysmayo ama malawaal ayaa samaysmaya waxyaalaha la wada malawaalo waxa kamid ah shirkii Itoobiya uu Abiy iyo maxay tahay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Eritrea ay yeesheen ma taqaanaa ay ku yeesheen Eritrea shirkaas dad badan waxay u tarjunteen in Somaliland lagaga saaray shirkaas saddex meeloodka ahaa saddexda in Somaliland laga saaray waxaan ka fikirin madaqada geeska Afrika de Somaliland kaliya kuma taalo saddexda wadani kuma yaalin wadamo badan oo kale ku yaala wadamada kale shirka kama ay qayb gelin saddexda wadan bay ahaayeen wadamaduna de xaq bay u leeyihiin inay danahooda gaarka ah ka shiraan muddo badan baa laga yaabaa in xiriidho aan hagaagsanayn isku soo dhawaanshaha iyo isu imaatinka iyo is araga iyo wax ceebaho ku jira ma jiro cid ka masayraysaana cid ka masayrtaana waa khaldan tahay Somaliland kama masayrin wax ay saameyn oo ay isleedahay ama waxyaalaha oo isleeyahay shirkaas waa idin gaarsiinayna ma jirin wadamaduna xor bay u yihiin inay shiraan oo danahooda ka shaqeeyaan midun baa meesha taalo waxa weeye Somaliland mandaqada geeska Afrika dalalka ku yaal bay ka mid tahay cidii istiraaha markaa ka saar oo iyada fogee ama yaanay ku yeelan wax ma taqaan bahalkii taas way khaldan tahay way cid ka saari kartaa ma jirto ilaahay baa ku abuuray geeska ilaahay baa deegaankan ku abuuray cid iska indha tiri karta jiritaankeeda iyo doorka ay ku leedahay ma jirto laakiin wadamadaas inay danahooda gaarka ka shiraan xaq bay u leeyihiin kamana masaysanin mana diidanin wax yeela aanu aragno inay yeelanaysan ma jirto taas waa qodobka kale Abiy badanaaba waxa lagu sheegaa inuu ka shaqeynayo ama uu in badan ma taqaanaa faaftay isku soo dhawaanshaha dalalka ku yaala mandaqada geeska Afrika inuu ka shaqeynayo arrinta waa soo dhaweynayna inay dalalku isku xirmaan nabad ka dhaxdhacdo la is ogolaado la wada baayac mushtareeyo la is dhaxgalo dadkeediyo ummadaha ku nool ee walaalaha ee geeska ku nool ee mandaqada ku nool inay isku soo dhawaadaan aad baa Somaliland u soo dhaweynaysaa aad bayna u ogoshahay mana diidan siyaasadda iyada oo way soo dhaweynaysaa waxyaalaha kale ee malaawaalka ah Somaliland iyo Itoobiya xiriirkoodii xumaaday ama shaki soo galay ama soo waxa kamid ah waxyaalaha yar yar oo la taabtay oo uu taabtay qoraalkaas oo mesela ay kamid yihiin maxay too waxa la sheegaa in safiirkii Itoobiya ee halkan qunsuliyadda halkan Hargeysa ay Itoobiya ku leedahay fadhiyay waatii nin odaya la keenay bari dhaxaasa ninka odaygii uu hawlgabay oo waqtigiisii uu ku hawlgabayay shaqada ka dhamaanaysay ayuu gaaray waa la bedelay bedelkiisi baan wali imaan in badan waxay shaki gelisay maxaa safiirkii loo soo kii lagu bedelay muxuu imaan waayay wax la laga shakiyo ma aha
safaaraddu shaqadeeda sidii caadiga ahayd ayay u socotaa ku-xigeenkiisii baa jooga dadkii kale shaqaalaha dhammaan shaqaale xoog leh oo nooc walba leh xagga nabadgelyada maxaa to hawlihii diblomaasiyaddu ay qaban jirto oo dhan dad buuxiye ayaa jooga sida caadiga ah bay noo wadaan dowladda waanu wada hadalay wasaaradda arrimaha dibadda waanu wada hadalay waxay noo caddeeyeen oo noo ballan caddeeyeen inay soo bedelayaan oo uu soo socdo ay soo xulanayaan qofkii meesha munaasibka ku ahaan lahaa ay u soo bedelayeen geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa uu ka hadlay xiriirka dalalka Somaliland iyo Kenya iyo halka uu marayo shir baan ku qabanay dowladdu ay ku qabatay ay abaabushay aad qayb weyn ka qaadatay safaaradda inoo joogta Kenya iyo wasaaradda halkan waanu kala shaqeynay shir aad iyo aad maqaamka Somaliland aad iyo xiriirada iyo ganacsiga iyo aad muhiim ugu ahaa oo aad looga soo qayb galay aad loo jeclaystay aanu rajeynayno inuu in badan soo jeedi doono wada ganacsiga iyo maxaa maalgashiga Somaliland lagu sameynayo kambaniyada shirkadaha dawladaha cid kasta oo doonaysa danaynaysa ay ka soo qayb gasho oo aan rajeynayno inuu maalgashi badan soo jiido ayaanu Hargeysa ku qabanay Nairobi shirkaasuna shir aad iyo aad midho dhal ah oo guul ku dhamaaday oo anaga qudadkaygu inaan filayn inuu heerkaas u qarxi doono ayuu ahaa waxaan rajaynaynaa inuu in badan keeni doono maalgashi badan iyo dad badan oo dalka kan soo daneeya oo ama ogaada xaqiiqada iyo fursadaha ka jira dalka kan